بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحن سلام يا أمة الصوماليات وحن بدنكم سلام يا سلامة إسلامك. سلام الله عليكم. رمضان مبارك. رمضان أنا بدنك قصيبين نقطة. رمضان مبارك. إلهي كو صونك يا صلاتك أقبله. الله ينقدركم أنك نار تلقى حرين يا ربي ينقدرك. waxaan doonayaa aniga oonan raali ka ahayn maanta inaan halkan soo fadhiisto ay Ramadaan tahay aanan rabin kiiskan inaan ka hadlo sideedaba disgusting ah ee dadka wareeriyay haddana waxay noqotay wax laga maarsami waayo maanta inaan hortiina soo fadhiisto waa bil Ramadaan waa bisha cibaadada bil buuqa ma aha bil iscaaya ma aha bil isfadeexadeeya ma aha bil iska been sheega ma aha bil munaafaqad la isla dhex wareega ma aha waa bishii Ilaahay gacmaha la horsanayay ee jaaniska u ahayd dadka aanan bisha kale ee soo socotay tanteeda gaari doonin anigoo taas og inay qaar badan dambaabayaan haddana maanta waan khasbanahay inaan hadlo kiiskan ka hadlo magacayga waxaa la yiraahdaa Safiya Yunus Jaama waxaan ku magac dheeray Safiya Tusmo intiina ay taqaanana way taqaanaa intiina kalena barasho wanaagsan waxaan ay gabadhii haysatay baraha bulshada labadii week ee dhamaaday ilaa haddana roobka dhagaxyaalaha uu istaagi lahayn waxaan doonayaa qisada dhinacayga maanta inaan ka hadlo sidoo Rabbi ugu ogyahay inaan u hadlo maadaama ay Ramadaan tahay halka waxaan u soo fadhiistay maanta idinkoo dhan haddaan idinku weynayo idinkoo dhan Ilaahay sidoo ogyahay inaan hadlo waan soomanahay waa Ramadaan sheeko walba laba dhinac bay leedahay hadda darkiisa qof dhiigaya baa leeyahay qofka hore ha ka taageerin waxa laga yaabaa kii ka soo dhiijay inuu isna soo dilay kiiskan hadaan idhaahdo hadu dhaadhacdidood ilaa iyo hoos u socotid kama gayoodeyno waa long story aad bay u dheer tahay wax badan oo runa jira wax badan oo been jira wixii Rabbi ogyahay qisada aniga dhinacayga aniga oo ina iga haynad kala rogataan hal lagu soo jawaabo hadna intan tiri haddana inta ina iga hayn sidii Alle igu ogyahay side-kayga ayaan doonayaa inaan ka hadlo Rabbi sidoo igu ogyahay haddaan isiraahdo maanta Soomaalida iska dhaadhici haddaan isiraahdo maanta magacaaga image-kaaga ku dagaalan haddaan isiraahdo sharaf dhaca lagu maagan yahay iska geeji haddaan isiraahdo maanta Ramadaan weeyaan Soomaalida la hortago maxay oo been ka gad Ilaahay waxaan ka baryayaa inaanu beenta aan idin la hor imaado iiga tagin ina gablan iyo gaajo iyo gabow saddexda Ilaahay laga magan galaba ay kulmaan haddaaban maanta been idin la soo hor fadhiisto oo isiraahdo maanta Soomaali been ka iibi haddii aanan waxan dhicin sheego oo wiilka islaameed carabkiisa qalloociyo oo waxuuna odanin wuu yiri aan idhaahdana Ilaahay waxaan ka baryayaa calaamo aanan caalamka lagu argan Ilaahay uu soo rogo carabku hay qallalo haddaan wiilka carabkiisa qalloociyo idinkuna aamiinta igu soo hufla taas marka laga soo gudbo sheekadani aad bay u falxun tahay aad bay disgusting u tahay it's not only between me and him waxay noqotay sheeko laba qabiil gaadha waxay noqotay sheeko Soomaali oo dhan gaadha waxay noqotay sheeko dad guruubiye ah ay maaragtay u kala saftaan waxay noqotay sheeko aan daacad laga ahayn waayo dadkii saddex way u kala jabeen qolatus ma raacday sax iyo qaladba iyo qolo ninka raacday sax iyo qaladba iyo qolo ku dhex wareertayo sidii riwaayadiis ay hablayo hadmad guurso doontaan akuuku qaybtiisi markay tusma hadashana tusma runteed waay markuu isagu hadlana wallahi runtii way oo saas ayay ana way jirtaa dad yaaban oo dhabanada haysto meel ay ka bilaabaan loo iska anfiriirsana way jiraan waxaan doonayaa inaan ka bilaabo haddaan isiraahdo halkii ay ka soo bilaabantay ka soo bilow ilaa ay habeen dambe idii halka fadhiyeysaan laakiin qodobada ugu muhiimsan kaliya ayaan soo fadhiistay maanta halkan inaan ka hadlo hadday noqoto inaan exactly wixii dhacay sheego
halkay ka bilaabantay kasoo bilaabo istab idraahdaad maanta aad idinla wadaagtid igu wallaahi oo bilaahi oo tallahay 3 saacadood iyo moor bay noqonaysaa waxaan laga gayoodayn bay noqonaysaa laakiin waxaan doonayaa dhowrka qodob ee waaweyn ee media dhex araraya ee idinkuna ku dambaabteen kaliyaata inaan inta xoog saaro maanta haday noqoto in laga hadlo oo ilaa ay dib loo noqdo waxay noqonaysaa another day inaan u fadhiisto adduunkan wax walba inay soo marayaan waan filay laakiin waxyaalaha noocana waxaan habeen ku seexdoon ku soo toosay maaha weligeys maan lahayn sheeko noocana ayaad mutaysanaysaa intaad ifka ku nooshahay laakiin way dhacday wixii kugu dhacayaana waxaa la yidhi 100 sannadood ayay kaawan yihiin everything adduunkanaad ku marayso waa wax ilaahay loox maxfuudka ku qoray sax iyo qaladba xaq iyo xaq darraba marka waa inaan taas aamino haddaan isiraahdo staan horeba u sheegay halkan ka timi halkan ka yimi halkan aan ka idhi halkan aan u socday sanbuu yerisan baan erisan waxay noqonaysaa wax bilaa cusba waxay noqonaysaa wax qashin oo xinjiro fajaas oo lagu xanuunsado waxay noqonaysaa waxaad waa akhira seegtaan waxaan idinka soo bilaabayaa sheekada guurkan relationship-ka noqday ayaan doonayaa inaan anigu side-kayga ka hadlo waxaa la yidhi tusmo markhaati ma haysato oo caddayn ma haysato oo maxay ma haysato oo kan ma haysato guur la ii soo maleegay barnaamij laga soo shaqeeyey wax maxaan ku dhaha tiimaysan wax ayuu horta waxani ahaa laakiin muhiimaddu waxay tahay waa run markhaati ma haysto ilaahayaan ahayn waa run meesha ma joogin anigu cabdinuur daljir nin la yidhaahda ay soo qaban ilmo usoo dhalay saad idinkuwa meel walba walqinaysaan maalintii aan mehersanayay meesha laygu mehersaday ma joogin maanta hadduu la yidhaahdo qaadigii iyo markhaatigii keen ilaahu cadaabta igu salool keeni maayo because ma garanayn qaadiga isagaa keensaday markhaatiyaasha isagaa keensaday odaygu isagu ii dhiibay un baan la hadlan wakiishay meherkaygu sidaaba ku dhacay 8 sano laygu qabay ilmana aan ku dhalay kan inay saagtali saasoo kale unbuu ahaa nin baa waxaa la yidhi geed baa lala tegayo gar baa loo dhigtay gartii markii loo dhigtay ayaa ninkii gartii lagu moosay waa laga gar helay banaankaa la dhigay daacadna wuu ahaa meel alla meeluu wax ka qabto waaye markhaati ma haysto waxba ma haysto ninkii wuu aamusayo wuxuu yidhi ilaahayow subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ilaahayow alla ilaahayow aamusnaantaan kugu nacay waayo ilaahayow keli haatay unba arrintiisa ogaa kiiskan waxaan qodobkaa kaga gudbaya mar haddaanan anigu caaisha ummatul mu'miniin ahayn oo maalintii dembigan oo kale lagu soo oogay tii lagu dhigay caaisha ummatul mu'miniin xaaskii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la yiri way sinaysatay mar haddaan sideedii aayado quraan soo degay mar haddaanan maryam ciise hooyadii sidiisa ilaahay hilinay oonan ifka ilaahay maanta uuna hadlayn kiiskaasi wuxuu ahaanayaa she said and he said unsolved kaasuna ku dhamaanaya ilaa de isagu uu ka run sheego ka hor wuxuu ahaanayaa unsolved cabdi inaan isqarsano oonaan qof nool u sheegin anay iga timi anigay ahayd qofkii ku dagaalantay inaanay cidina maqleen aan isku dhaarsanay inaanaan qof nool u sheegin ismaan lahayn this is gonna happen because weligay iyo waliidkay waxaan oo kala dhaca maskaxdayda kuma jirin isagu laakiin faji uu ka shaqeynayay bay ahayd guurka taas baan idinku odhanaya
tan la leeyahay way sinaysatay oo way maxayso ilaahay ku gaftayna waan u soo socdaa. muddo sanad iyo waxoogaa ah anu waxaan qof cilaaj ah, waxaan qof xanuunsan, waxaan qof qalbiga ka xanuunsan, waxaan qof emotionally iyo physically bajiran. inta dhakhtar daba wareegta sariirtuun saaran uun yuusaysa. sidaan horeyba idinku sheegay, ilaahay wuxuu og yahay oo rabbi og yahay keli haatan sheegi kara. waxaan marag ka ahaa ee markhaati ka ahaa keliyaan sheegi karaa. wixii mala awaal ah ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa og, anigu ma sheegi karo. waxaan aaminsanahay oon maanta anigu aaminsanahay oo ilaahay igu og yahay shaydaan in lai adeegsaday. waxaan aaminsanahay in madiido la igu sameeyey. waxaan aaminsanahay in baawarkii ilaahay isiiyey laigala wareegay. waxa ii caddayna oonan maanta haddii aan ka been sheegayo, haddii aan isleehay kayskan ku adkayso, haddii aan in uun maanta qalbigayga aan ku jirto Soomaali arrinkan qodobkaa ka gad, waxaanan adduunka ilaahay ummadda tusin ee ugu xun ifka ilaahay igu soo rido. aamiin dhaha. calaamo aanan caalamka lagu arag ilaahay korkayga inuu ka ifiyo. aamiinta soo dhaha. sheekadan jacaylka ah iyo shukaansigan iyo waxan iyo sheekada Cabdi wuxuu ka soo shaqeeyay bay ahayd. isaga ila yimi. he had a plan, laakiin anigu daacad baan ahaa. markii hore oo dhan, bilihii hore oo dhan anigu maan jeclayn. waan la yaabanaaba dee isagaan ka tooxsan jiroon kula yaabana. maalin maalmaha ka mid uu isoo wacay. wuxuu yidhi gurigiisu ka guuray. waxaan ku yidhi guriga maxaad uga guurtay? wuxuu yidhi guriga waxaan uga guuray magaaladeeda waxaa soo baxay niman Suudaaniya oo 20 gini la siiyo oo qofka sida aad rabto adigu kaaga dhigaya. amba ha kula joogo amba ha kaa maqnaado. qofka saad adu doonayso ayay kaaga dhigayaan. waxay sameeyaan black magic. madiiday sameeyaan, sixir bay sameeyaan. qofka waxay ka dhigaan qof saad adu doonayso kaaga dhigayaan. oo dabadeetana gabdhihii saaxiibka la ahaayo dhan baa nimankooda ku sameeyay. markaa waxaan u baqay naftayda. reerkayga uga soo baqay. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa iiga marag iyo markhaati ah inankaas waxaan ku idhi. isagaa ii marag. wuxuu ku adkaystay wuu iga dhaadhiciyey because of sixir, cabsi sixir uu ka qabo inuu halkaa uga guuray. aniga maanta waxaan aaminsanahay sixirka uu igu lahaa gurigaygaan uga soo cararay inuu aniga ii adeegsanayay Cabdi. bil kama soo wareegin. bil buuxda maalintaas kama soo wareegin. markaan noqday qof beeshana oo jismiga ka jiran oo xanuunsan. ilaa iyo hadda xaqiiqada aan soo helayna 100% maan hubin, laakiin waan iska mina awaali jiray. taas waxaa dheer 2500 waxay ahayd lacag aan u baahnayn oo dee uu ku dhoofiyo Turki ku tagay. kiradiisa iyo biilkiisuna meel bay saarnaayeen. waxaa ka soo wareegtay midhaa week intii processkiisu socday ayuu haddana ii soo fikiray. wuxuu yidhi kuma aaminayo, kuma aaminsani. sababta oo ah case numberkii hore kow aad ka baxday ee dhaaratay ayaa wuxuu dilay aaminkan kuu qabay oo dhan.
arrintan inaad faithful ka tahay ma ogaan karo ilaa aan ismehersano maxaan ku idhaahdaa kuguma aaminayo micnaha inaan nuunusaa iskala hadalo wuxuu sankaa igaga tolay qasab inaan ismehersano muddaba 3 jeer ayaan maalintii aan ku heshiinay inaan ismehersano kasalon dib uga dhacay haddaanay taasi dhicin ilaahow casiisow casaawo jallow ummadda Soomaaliyeed inta idaawanaysa itaqaanay keeska la socoto wada nool waxay igu arkaan oo masiibo igu soo rog hadii aan inanka ka been sheegayo oo ina taasi dhicin qasab ayay noqotay inaan taana idhaahdo hay laakiin hal shay aan ka codsaday inaanay dadkuna maqlin oonan xataa asxaabta dhow aanan u sheegi karin sidii ba ku dhacday isaga oo intaasoo shay haysta oo dhaartii haysta widaariyay oo meherkii haysta oo lacagtii iga dalbaday haysta haddana inankii wuxuu noqday qof aan istaagin oo qaboobay dacwad uu socoto hadal uu socdo canaan uu socoto dirir uu socoto wuxuu socoto بريجي هراء أردن هندداد يدو وحي أنا كلي يقوم يبلغني هندداد وحي يجا بلغي كون يسدلي أنت نسدله أنت نعجل الضوبه أيها وحن مد وشيء إن أنظرتها يسكدلي أدوبنا أمد واحد كجب بحتاس وواحد نقول قبل دي ويل كين تي عقابتي إيه دبتي إيه جعلكوا جميستي وننكاسي درتي يسكدلي أنا قلنا حنون كان ما بقى ذكر أنت كبدنا دون كون كتيجي inuu isdilo ayuu igaga dhigi jiray boolin aniguna run baan moodi jiro mar alla markuu mar isdilo baan dhigi jiray ilaahay ka cabso waxa seen kan muwaalin yahay miyuu xanuunsan yahay armay wax jiraan armay dhaf tahay qof serious oo ilintu ka daay soo xanaaqsan oo qaylinayo oo kule hadda naftiis ka gooy wax alla wuxuu codsado saas baan ku filin jiray sidaan horeba idinku dhaartay idinku habaarkaygii hore dabada haya haddii aan hadal beena oo meesha ku jiro ilaa maanta ilaahay un baa ii marxaatiya iyo isaga inta markaan halkaas la joogno cajaladii wuu bedelay inankii wuxuu bilaabay inuu waan istilidan laga gudbo waxaan oo dhan laga gudbo inta yar waa intuu sugayo processkii u socday Soomaaliland maalmaha ka bina isku dhacnay waan soo baxayo hees yar baan dhageysanayo heestii baan suray Facebook meesha yar story-ga ayaan soo dhigay wuxuu u arkay inaan isaga ku dhaga hadlayo wuxuu yiri maansoo soo qoray weyn dad inta badan waa dadka Facebook-giisa shucuurtiisa ku soo qora maansoo soo qoray wuxuu yiri dhaga hadalku waa ceeb haday sharaftu dhelido haddii aanan dhimano karoonuhu dhinac maro waa inoo dharaar kale marka aan dhulkii tago inaad dhayacan toogtiya in dhanaan ku madax maro screenshot baan ka qaado waan diray waxaan ku maxaad igu hanjabaysaa dadka aanan maansooyinka akhriin suugaanta garanay af Soomaaligu qaliilka ku yahay ayaa de waxaan loogu sarbeebayo waa bad hanjabaad cad oo banaanka taalade marka Soomaaliya tagto maxaad igu soo in kartaa Soomaaliya wada joogtay uu qoslay halkii baan ku heshiinay maalintaas dhowr cisho kadib wax yar baa ka dambeeyay adoo dhowr xogaa maalintii baanan dee taariikhdii laan maan qoranayno ismaan lahayn akhri baa lagu odhan noloshaadii ayuu ila soo hadlay wuxuu igu yiri nin baa imanayay waxaad ii soo dhiibtay iPhone 11 telefoonki baan diray telefonkii iPhone 11 ka markuu Cabdi u tagay Cabdi wuxuu bilaabay inuu recording igu sameeyo wax kasta oo ka hadlayno hadaan xadiisayno hadaan dad xamanayno hadaan quraan hees qaadayno hadaan quraan akhriyayno hadaan sexual talk ka hadlayno wax alla waxayna dhex maraya he was recording me the whole time waxa la gaaray safarkiisii wuu safray
hargeysuu tegay hargeysa markuu saa uga tegay ayaan la hadlay waxaan ku yidhi ma tagtay hargeysa nabad soo maad gaadhin haddaba waxaad samaysaa waalid baa kuu jooga walaal baa kuu jooga caruur baa kaa horeysa asxaab baa kaa horeysa waa magaaladaadooda intaa ka maqanayd markay hargeysa kusoo tufto eed qaraabo salaanka iyo qayilka iyo asxaabta iyo adduunka kasoo boodo haynoo ahaato waayahay buu yidhi waxaan ku yidhi lacagna waad haysataa haddii aad ku kifaaxdo $1 oo maalintuu dhoofiyaan u diray gacanta ku haystay waxaan ku yidhi intaad $1,000 iyo hargeysa isla soo gurinayso dee reerihiin iyo qaraabo salaankaaga iyo asxaabtaada kusoo baadal gareyn maayo waan iswici jirnay marmar laakiin telefoonkii video callka ahaa 24/7 ahaa ayaa yaraaday maalintii dambe uu ila soo hadlay wuxuu yidhi ballan inoo qabaa inuu arrinteena kaga hadalo waayahay baan idho ballantii baan qabtay bisha 18keedii ayuu ka degay magaalada bishii ku xigtay 9keedii ayaan ballanta qabsanay ballantii ay wax yar ka hadhan tahay ayaa waxaan isku qabsanay gabadh hees wadatay hees loo soo sameeyay ula tagtay isaga iyo fanaana heestii bay ka qaadeen gabadhii 1500 ilaahow rabbi oo raxmaanow naarta jaxiima igu salool haddaan ka cadho ka waday amba qabyaalad ka waday amba ka xanaaq gabadhu igu haybay waan waco waxaan ku dhooriyaahay anigoo sheekadu ay kaftan iga tahay ma $1500 baad gabadhidan hees u sameyn ka qaadatay oo iimaanka baad leedihiin heestiyada wadata kaliya waxay idinka doonaysaa waa codkii bay idinka doonaysaa sidee u dhacday inaad $1500 ka qaadaan idinkoon midhana u sameynay wuxuu ii rogay inaan qabyaalad u hadlayo oon leeyahay maxaan ku idhahdaa si qaldan buu hadalkii isaga u galay anagu inankii heesta qaadayna ma lihin inantii heestana ma nihin laakiin dee hawadii adoo farahay ka baxday ballantayadii halkii baan isku dirirnay demiya rax baan isku nidhi anugu haddaan idhaahdo haddaan isdirirnaba cabdi isagun bay caynay haddaan isku xanaaqnaba isagun baa bilaabay haddaan anigu malaa'iig meel taalaan ahaa haddaan idhaahdo dee been baan idin sheegay I was firing back to codad naastu ii soo duubay anigu codad baan duubay handadaadun baan antayda ku jirin iyo hanjabaad maalintaas teleefonkii baan ka qaban waayay cabdi way soo wacay waan qaban waayay wuxuu ii soo qoray qoraal dheer ayuu ii soo qoray qoraalku wuxuu ku bilaabanayay adduunka intaa la eg haddii lagu siiyo wax walba haddii gacanta lagaa saaro billions of dollars haddii lagu siiyo waxa aanad marnaba helaynin waa sharaf waxa aanan lagaa gadaynin waa sharaf saacaddaa laga bilaabo warqadii waan hayaa ilaa hadda waan hayaa screenshot baan ka qaaday waxa aan duulimaad ku ahay waxa weeyaan sharaftaada tusma la wada jecel yahay baa tahay tusma la wada neceb yahay haddaanan kaa dhigin gaal baan ahay أنا waxaan garan waayay marxaladda ilaa xadkaas waxa gaarsiiyay qoraalku sidoo uu naasti u yahay ereyba erey uga foolxun yahay ereyba erey uga xun yahay waqasamu bi aayati Allah qofka akhriya uu matag baa qabanay wuxuu ku qoray detailkii oo dhan buu isoo qoray inuu hayo fiidiyoyo inuu hayo sawiro inuu hayo fiidiyoyo aanu diray inuu hayo kuwa uu duubay inuu hayo dis inuu hayo daa oo waliba detailkoodii aad yaabayso screenshots intuu ka soo qaadayna uu isoo raaciyay wuxuu yiri saacada laga bilaabaana kule maalinta haddaan naxdin u dhiman waayay wax badan ayaan idin dhex joogi doonaa haddaad idin necebtihiin iyo haddaad jeceshiinba wax badan ayaan idin hor taagnaan doonaayoon halkaas soo joogi doonaa haddii maalintaaba naftu idayn weydo waxaanan weligay aragoon maqal bay noqotay waxaanan filayn bay igu noqotay waxay igu noqotay murug ciil meel aan ka bilaabo ayaan waay waxaan ku go'ay bariyootan
walaalnimadeennii aawe jacaylkeennii aawe nolosheennii aawe faamilinimadeennii aawe wuxuu yidhi waxaad caddayn u haysato ud ku dood waxaanad caddayn u haysan ha isku daalin maalintaa laga bilaabo waxaan noqday qof sanka intaa fiinyo laga geliyay sidii dibida saas loo hayo waxaan ku qasbanaaday amar kastoo lasoo rogo inaan fuliyo habeenkaas waxaan isku dayay inaan isdilo shaydaanku wuxuu ii sheegay maanta hadduuna samaynin bariba kugu samaynaya marbaba haddii ay sharaf dhaca intaa la eegi kugu soo socdo adiga iyo ceebtaadu caalamkan ha ku kulmina ee kala horeeya haddana ilaahay